بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدن قدومية هذه يا أمة سنتهي وحارنتي أمة هذا اللي حلوانا شرفت له رنتي واجبات كذا دستوري جودنا أيان حقيقة وحيد الشيء يا إن كملنا هاي إن نظامك قلها شعبك أما شعبية ده إلا له حساب تما وزير ده iyo xukuumadaba aaminsannahay taas waxay tusinaysaa warqadan xalay wasaab waxay ugu soo gaartay baad al-maghrib saasay tahayna saaka 4 saac meeshan ayaan fadhiyay isla xalaydii aan warqad u qoray taliyaha inuu igala qayb noqdo in su'aalaha walaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ay qabaan uu jawaabteeda aan wada yeelan aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin runtii shaqada wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed u haysan مدن قدومية قدومية كلها شعب جمهورية فدرالية الصومالية مدن عبد الشيخ إبراهيم مودي وما أصنت هاي أرنت ورد سؤال شدلسي وحيد هاي أرنت حلوان هذا أي كتبان عيان إن عسكرتي الله صوتي أيق وارديني بربرتلون هذا اللي قصوا قالوا حرونتان يوم الحتوية ذبح in ciidankii la dhigo taas runtii waxaan rabaa in ay la wadaago waxa keenay arintii dhacdada ahayd ee xanuunka badneed ee runtii dawladnimada iyo sharafka iyo karaamadaba aan ku fiicneen ay ku dhacday SYL taasi ilaahba mahad iska leh arinkaas oo hadda dhacay in badan ayuu soo laabtay saa la socotaan waxa xaqiiqdii ee dhacdadii hadda tii ka horeysay meesha ku geeriyooday xildhibaanada sharafta leh ay askarta waardiyeynaysa ama istaafyadu qaar kamid ah ayaa meesha ku geeriyooday nasiib wanaag dhacdadan markay dhacaysay baarlamaanka ma jirin haduu jiri lahaa dhacdadan waa ka sii badnaan lahayd maadaama xilliga baarlamaanku uu furan yahay ilbaabka ee laga soo galo ay imaadaan ugu yaraan askar ka tira badan 100 ama 200 gaaraysa oo istaafyada aan isgaranaynin oo qaarna booliska ka socota qaarna ay sheegnabasada ka socota qaarna ay ka socdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama dhacdadaas dhacday waxaan ku guda jirnay in la baaro sababtii meeshaas arintaas ugu dhacday waxa taliyaha oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo go'aanada qaar oo ciidanka inuu hogaamiyo oo talaskeeda nidaamkeeda inuu sameeyo iyo waajibaadkiisa tahay laguna wargeliyay ayaa wuxuu sameeyay in baaritaankaasi ay ku jiraan waan ka xunnahay ujeedka sida loo bixiyay iyo sida u dhaxeen laba kaliya xildhibaanka inuu markuu gudbaayo oo meeshiisa si sax ah sareexad la ku gudbo askariga ee nidaamka iyo systemka maanta aan haysan waa la socotaan erayar haddaad bixiso wax kale ku darsadaan waa ilaa talaabo kale aad ka qaadin tiina waan qaadnay askartii markaas joogtida joogtay talaabaan ka qaadnay oo anshax ah inay la tacaalaan ee la shaqeeyaan runtii si wanaagsan ay markuu la tacaalaan xaqiiqdii waxa kale oo jirta in xal loo helo istaafyada horta baabkaas istaaga waxaan filayaa meesha xarunta aan joogno waa xarun kumeel gaar ah istaafyadeeni annaga waan ku filneen meesha aan gali jirnay waa nagu filneed laakiin hadda waxaa moodaa in wadadii ay ciidanka ay gooban yihiin waa in xal la helaa oo ah intee istaafyada la geena wuxuu waliba problem oo baakinkiga hadda jiro meel ay tagayaan inaan eelaamino go'aan isla qaadano from now on si xal looga helo ee dhiigoodan ku badbaado ee amnigiina kullay shaqada la qabtay waxay ahayd shaqo lagu ilaalinayo amniga shaqo lagu ilaalinayo amniga xildhibaanada golaha shacabka iyo madaxtooyada iyo madaxda kale runtii dhamaantooda ay ku sugan xaruntan iyo xarumaha kale ee ku xindaaban meeshan arrintaas insha Allah taala maanta wixii ka dambeeyay waxaan rajeynayaa si wanaagsan in ay ku dhamaato insha Allah taala wixii kale oo aan ka tagay waxaan rajeynayaa inuu ku daro saaxiibkayga ama taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa aad buu mahadsan yahay wuxuu i weydiiyay arrimaha gorgor iyo Soomaaliyeed iyo shabaabka dagaalka shabeellada hoose oo gawaabsiga noqday iyo al-shabaab oo ay sheegay galmudug xaggeeda maxaa loo dagaalamay xoogga wadaniinta حقيقة
afartii su'aalood asigu i weydiiyey su-aashii ugu horreysa ciidamada gorgor waxay ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ku howlgali karaan dhammaan geeyiga Soomaaliyeed runtii waajibaadka ay leeyihiin oo ku cad inay ilaaliyaan xuduudaha iyo meelihii kale loo baahdo in loo adeegsan karo waxaa la socotaan annaga waxaan shaqo adag aan gelinay in reform lagu sameeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan si ii sheeg adiga aan u helno ciidan tayeysan tayo leh qalabeysan waajibaadkooda ee dastuuriga ay gudan karaan sidaas darteeda sida walaalkayga wasiirka uu la socdo galmudug waxaa laga sameeyay qorshaha isku dhafka qorshaha wasaaradda gaashaandhigga u degsan oo ka mid ah qorshe hooleedka ee wasaaradda in ciidamadeena ee qalabka sida la isku dhafo waa la socotaan ciidankeena nidaamku ku yimid laakiin hadda waxaad moodaa in loo bedelo national ciidan qaran ah oo runtii isku dhafan ahlu sunna wal jamaa ayaa waxaa lagu daray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ciidamada meesha la geeyay ma aha gorgor hadaa la socotay ciidan kale waxaa jira beledweyne laga qaaday oo sidoo kale oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan waana la geyn karaa maanta galmudug la geyn karaa baydhabo la geyn karaa meel kasta waa tegi karaan qayb ayaan ku leenahay oo qaybaha ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku leeyahay geeyiga sida qaybta 21aad waan geyn karnaa qaybta 27aad la geyn karaa qaybta 43aad la geyn karaa qaybta 60aad oo baydhabo la geyn karaa qaybaha dhan marka waa isku furan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka duwan yahay ciidamada kale ee maamul goboleedyada ku leh sida ciidanka booliiska oo kale booliis waxaa jira local police force ah oo maamul goboleed uu leeyahay waxaa kaloo jira nabadgelyada sidoo kale laakiin ciidanka uu ka madax banaan yahay dhammaan isku mid ah ama Muqdisho joogi karaa ama Laatiinku joogi karaa ama isha qaybta 60aad joogi karaa 27aad joogi karaa marka waxaan is leeyahay taas hadda wax dhibaato inaysan ka jirin waxayna ka mid tahay qaybaheena waanu gudbin karnaa waa sharciyad arrinta aad ka dhawaajisay shabeellada hoose shaqo fiican ayaa laga qabtay xaqiiqdii waa waxyaabaha maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ku amaanaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la sameeyay wax la yiraahdo operation readiness assessment waxaa la sameeyay wax la yiraahdo in operation la sameeyo oo ugu magac darnay badbaado 1 oo runtii ay meelihii ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateynayay ay ka mid tahay Saliin ay ka mid tahay Sabiil iyo Caanoole iyo Awdheegle dhammaantooda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ay ii sheeg adiga kala wareegeen sidoo kalena waliba ciidamada ammaan badan ay mudan yihiin runtii waxaan dhihi karaa annaga ciidamo geesiyaal aan qabnaa oo dhiigooda bixiya dalkooda runtii maanta annaga mas'uuliyiin aan nahay laakiin marka muddad shaqada adag iyo challengeska adag runtii ay wajahayaan waxa waaye guulo fiican ay ka gaareen sidoo kale qorshaha dagaalka lama joojinin annaga nidaam iyo habraac ayaan leenahay umaadii ay joogto laakiin waxaan idinkaga taabanayaa qorshihii dagaal inuu soconaayo ilaa al-shabaab laga safeeyo dhammaan dalka Soomaaliya ama ha joogo ii sheeg adiga eri Puntland ha joogo ama ha joogo galmudug ha joogo ama ha joogo shabeellooyinka hoose ama jubbooyinkaba ha joogo dhammaantooda marka qorshooyin ayaan ka leenahay waxaa la socotaa waqtiyadan inay daadad dhaceen meesha aan ku dagaalana shabeellada hoose ay sheegaysana ay tahay meel dhulbeereed ah oo ii sheeg adiga xilli roobaadkan aysan suurtageli karin in operation sii socdo laakiin waa sii wadeen insha allahu tacaala xilligii oo aan dejinay ee qorshaha noo degan waa kusii soconayna xoogga wadaniinta waxaan filayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xoogga wadaniin kuma aqaano wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ahay meel ay igu qoran yihiin oo aniga aan ku xukumo ama ii sheeg aan kaga hadli kara marka ma aqaan taas Zakariya ilama Zakariya istaafyada tii hore aan ka jawaabay waaye checkpointyada midda su'aasha labaad waxay tahay checkpointyada asluubta si asluubina u dhaqmaan ciidanka markaan register-gareynay systemkiisa wixiisa aan dejinay waxaan ku guuleysanay inaan barno wax la yiraahdo ansha code of conduct inaan barno iyo discipline-kii ciidanka uu lahaa in la baro oo ii sheeg nidaamkooda wixii nagala habboon inaan sameyno mas'uuliyadda xildhibaanada waxaa ii sheeg adiga xaqiiqdii yaa qaadi kara waxaa qaadi kara dhammaan ii sheeg adiga ciidamada qalabka sida in loo sameeyo maxaa la ii sheeg adiga nidaamkii oo ay xaq u lahaayeen ama loo sameeyo marka daayir aamin jeesow aad buu mahadsan yahay walaalkii qaaliga yaa amarka bixiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed amaradiisa nidaamkiisa waxaa jira wax la yiraahdo chain of command
ciidanku waxaa xukuma taliya ayaa xukuma taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dastuuriyahan leh inuu maamulkiisii oo dhaladiisii isugu bixiyo hadda inaysan shaki ku jirin ayaan inaysan marka sidaas daraadeeda Afgooye iyo Jowhar waxay qayb ka yihiin dadaalada badan iyo dib u habeynta badan ciidanka lagu sameeyay sidii lagu gaari lahaa guulo ama yoolal sax ah ummadda Soomaaliyeed ay ku qancin karto insha Allah ta'ala sida aan qorsheynayna sida ugu dhaqsiyaha badan wax badan oo wixii hore ka duwan ayaan ka qabanayna waxa waaye guriga asaas ayuu leeyahay xaqiiqda inaan isla fahanaa fiican dalkana waa wada joognaa xaaladda uu ku jirana waa naqaanaa ciidanka dib u habeynta badan uu soo maray taas ayaa ii sheeg waxay noo sahli doontaa in dhammaan meelaha hadda aad taabatay wixii aan ka qaban karno qarankeena inaan ka qaban insha Allah ta'ala waana dadaalaynaa haddii la yiraahdo waa mahadsan tahay amarka waxaa iska leh taliyaha waana mahadsan tahay maye su-aalaha ay weydiinayay waxa waaye amarka ani waa ka jawaabay saan filaayo xildhibaanka meel kale hadduu wax ka raadinaya ma ogey saaxiibkii aad u mahadsan yahay amarada ciidamada ii sheeg adiga checkpointyada ciidamada jooga waxaa xukuma taliya ayaa xukuma chain of command ay u hoos tagaan amar la'aana wax kuma fulin karaan marka aad u mahadsantahay waa fahanteen malena walaal marka aad iyo aad u mahadsantahay wixii kale oo aniga azakari waa maasan yahay saabirow beejka aad ku xildhibaan weliba waa maasan yahay jaabir waa mahadcelin saabir aad u maasan tahay beejkaas ku qorneed aadaan kaaga mahadcelinaya xildhibaanada isgoosiyada waajibaadka iyo ciidamada in kala sarayn iyo tababarada waxaan u malaynayaa ciidamada iskuusyada dhowr mar ayaan ku jawaabay waa soo laabatay waa maasantahay xildhibaan saabir ciidamada meel lagu kala sarreysiiyo aniga ma garanay ciidamada qalabka sida qof walba xuquuqaadkiisa waajibaadkiisa waa cad yahay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqada uu qabanayo uu cad yahay xaqiiqda sayla tahay uu ku leeyahay shacabka iyo ilaalinta iyo inay civilian component yihiin oo shaqadooda ay cad tahay ciidanka asluubtuna waa cad yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nidaamka ii sheeg adiga shaqadiisa ay tahay waa cad tahay laakiinse ii sheeg adiga meel ay ku kala sareeyaan kale oo aan intaas ka duwan aniga ma garan karo laakiin waxa ay weydiisaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma kala sareeyo marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan soo laabto waxay ku kala sareeyaan darajada askariga dabla ah iyo xidigla ah ilaa heer janan laga gaaro waxay ku kala dambeeyeen waa chain of command-ga uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay taas ay ku kala dirisanayaan laakiin darajo kale oo intaas ka duwan anaga ma garan karo insha Allah ta'ala taas saas waaye waxaan sameeyay xildhibaan saabir aad u mahadsan tahay waxaan sameeyay wax la yiraahdo doctrine oo ah qaabka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu tababaro ciidamadeena waagii hore waxaa jirta tababaro badan in wadamo badan ay ka soo qaadan jireen oo kala duwan oo nidaamkooda hataa inay isla falgelin laakiin hadda waxaa ciidanka noo tababara dadka waa dowladda walaalahan ah ee Turkiga oo runtii aan u maleynaynaa NATO doctrine inay tahay Mareykanka isku doctrine yihiin ee nidaamka tababaro iyo ciidamada kale oo isha EUTM training mission oo iyagana kuwa noo tababaran ay yihiin sidoo kale doctrine-kaas marka same doctrine ay ciidamada qaataan hal tababar ay ka soo baxaan hadda isku si bay u dagaalami karaan marka nidaamka ay qaataan waa taas military saabirow anaga ciidan uma dirin kolley ma garan karo marka ciidanka su-aashaas waxaan u malaynayaa markaan aan wax ka qabto ama u diro marka taas waaye waxa ay weydiiyey aan ka tagay su-aasha daahir aamin jeeso oo ah saraakiisha Allah u naxariisto xaqiiqdii dalkaani waa mudan yihiin shakhsiyaadka ama ii sheeg adiga dadka darajada sare ku gaaray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan Allah u naxariisto walaalkeena qaaliga Cumar Dheere iyo ragii iyo asiga la mid ahaa wasaaradda tan tagnay dhaxdan dhibaato badan ayaa jirta xaqiiqdii waliba xildhibaanada waxaan aad u jeclaan lahaa
inay mar horeba waxaan hataa ay noo tacsiiyaan xaqiiqdii arrinta hadda lagu qabsanayo wax ka daran dalka dhacay taas iyada ah waxa waaye xildhibaanada xildhibaan maxamed daari aamin jeesow habraac ayaan sameynay oo dadka agoonta iyo wixii wax lagu siiyo qaarna already waan siinay mushaaraadka waa la siiyaa saa la socdo waxaa maqan sharciga xaqsiinta oo hadda ku maqan aqalka sare insha allahu tacaala wiigan inuu ka dhammaado kaasaa wax walba wuxuu clear ka dhigayaa qofka xaquuqda uu ku leeyahay ciidanka iyo waxyaabaha uu mudan yahay laakiin xaqiiqda waxay naga mudan yihiin inaan ammaano inaan xasuunansano aan qalubteena aan ku hayn waa dad naftooda u bixiyay dalka insha allahu tacaala arrinteeda way soo gaartay liistigeedii qorsheeda waxeedana waa socda taliyaan waa ka wada shaqeynay horeyna ugu wada fadhiisanay mashaarka waa la siiyaa wixii kale oo ii sheegay mashaarka ka baxsan xuquuqaadka kale aan ugu dari karna dadkaas aan ku dhiirigelin karnaa insha allahu tacaala waa ka shaqeynaa aad